Assalaamu calaykum. Dimuqraadi waa arrin maanta adduunka aad ugu faafsan oona ka soo bilaabatay dhanka iyo Yurub. Muddo aad u badan markay kaniisadda ku amartaaglaynaysay shacabka reer Yurub, sababtoo ah kaniisadda amarada ay bixinayso haddii ay noqoto xalaal iyo xaaraam, waxay ku bixinaysay Ilaah baan sidaa yidhi. Ma odhan Alle, ee waa been iyo beddelid ay ku sameeyeen kutubtii Alle u soo dejiyey. Ugu dambayn, shacabkii reer Yurub markay u dulqaadan waayeen nimanka magaca Alle danahooda gaarka ku fushanaya, ayaa waxay go'aan ku gaareen diin iyo siyaasad in la kala dheereeyo, iyagoo isku raacay xalaal iyo xaaraam. Cid go'aan ka gaaraysa in ay noqoto shacabka Alle iyo kitaab midna aan lagula noqon. Aragtida noocaas ah waxaa loogu magac daray dimuqraadiya, waana aragti dhammaan caalamka xilliga ka jirta. Dowladaha Islaamka sheegtana dhammaantood ay ugu qoran tahay dastuuradooda. Dowladda waa dowlad dimuqraadi. Waxaa intaas ka sii daran, dad culimo sheeganaya in ay difaacaan nidaam waxa uu ku taagan yahay ay tahay diin. Shaqo kuma laha siyaasad iyo xeerka ciqaabta. Waxaa shaqo ku leh oo ansixin kara golaha sharci dejinta. Qodob ay iyaga ansixinina ma noqon karo xeer ciqaab. Reer Bani Israa'iil markii ay ka dhaga adeygeen fulinta amarada Alle, ayaa waxaa ciqaab looga dhigay 40 sano oo saxaraha in ay iskaga daba wareegtaan, meel ay u socdaan iyo meel ay ka yimaadeen ay garan waayaan. Balse maanta ummadihii Islaamka sheeganayay oo markii hore ahaa ummad hal ah, markii cadowga Islaamka kala qaybiyey oo qolo waliba xero sidii arigii meel lagu ooday, shareecada Islaamka ay ku dhaqmi jireen dastuur gaal loogu beddelay, iyagiina sidaas raalli ku noqdeen, baa Alle subxaanahu wa tacaala ciqaab uga dhigay 100 sano in ay iska daba wareegaan.